السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمر كلا سود واضح أدي هذا ومهتسنتهين مانتا وقميص وانا كوبي طبنكا بيش السجالات سبتمبر سنة كلا بدو كون يشان يلا باتنكا مقال كان وحربا إن كل وداغو محا إلا يحد كسو كردي دلكي جارلي كيرك أو شالي لغو دلي ساقو لها ليي بقمنان أردايا oo jaamacad ku taala gobolka Utah ilaa ay hadda baarayaashu maxay heleen shir jaraa'id oo ay qabteen waxyaabaha ay soo bandhigeen qofka laga shakisan yahay sawirkiisa oo la soo bandhigay baarayaashu maxay muuqaalaha oo ilaa ay hadda ay heleen isla markaana baaritaankooda ay wadaan maxay tahay diyaaradan la leeyahay airport aan ka fogeyn goobta dilku uu ka dhacay diyaarad private ah ayaa ka duushay kadibna daqiiqada kadibna raadeerka ayay dansatay arintaasina sidoo kale waan idin la wadaagayaa madaxweyne Trump oo isaguna sheegay bilada la yiraahdo Presidential Medal of Freedom inuu guddoonsiin doono ninkii dhintay ee saaxiibkii ahaa la taliyana uu ahaa inuu biladaasi guddoonsiin doono arrimahaas oo ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada umrada sanadkan Salana Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex baridda qaabka loo guto acmaasha umrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona faahfaahintaasi dheer fadlan WhatsApp number eber 9645459284 mahadsanidin waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa kamid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaanina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaad kala xiriiri kartaa gmailka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda ku dhawaad hadda 24 saac ayaa ka soo wareegatay markii la dilay Charlie Kirk oo ahaa nin muxaafada isla markaana ku wareega jaamacadaha Mareykanka dhalinyarada jaamacadaha dhigatana fikirkiisa kala dooda isla markaana su'aalo ay weydiiyaan waxana waa ninkaasi nin inta badan cunsuri ah oo dadka cadaanka ah iyo Kirishtaanimadu ay si aad ugu weyn tahay hadda koor waxa uu yiri xitaa Falastiin wax la yiraahdo ma jiraanba muslimiinta soo galootiga qoomuluudka dadkaasi oo idil ninkan waa uu nacbaa marka shalay isagoo la hadlayay dad ku dhawaad 2000 ilaa 3000 oo qof u dhaxeeya jaamacadda Utah Valley University ayaa la toogtay hal xabad ayaa lagu dhuftay isbitaalka ayaa loola cararay oo xitaa ilaaladiisa ayaa la carartay sida sawirkan aad ka aragtaan markii dambena isbitaalka ayuu ku geeriyooday marka baaritaankii ayaa ilaa hadda socday haddaba FBI-da iyo mas'uuliyiinta gobolka Utah shir jaraa'id oo ay maanta qabteen ayaa waxay ku faahfaahiyeen waxyaabaha ilaa hadda ay heleen FBI-du waxay soo bandhigtay sawirkan idiin muuqda oo ah qof laga shakisan yahay oo loo maleynayo inuu dilkaasi Charlie Kirk uu geystay laakiin ilaa hadda qofkaasi lama hayo FBI-du waxay sidoo kale sheegeen meel kaymaha oo ka fogeyn jaamacadda in ay ka heleen qori loo maleynayo inuu yahay kii lagu dilay Charlie Kirk isla markaana qoryahan sida aadka ah wax u dila oo akiyaasha amaba high power rifle ka la yiraahdo ay ka heleen meel kayma ah oo jaamacadda aan ka fogeyn laakiin ilaa hadda shakhsiyada qofkan ama magaciisa lama carabaabin shalay markii arintu dhacday qalqal ayaa meesha ka dhacay dadku dhawaad 3,000 ayaa joogay dadku waa ay kala carareen booliisku waxa jirtay in ay qof ama nin oday oo magaciisa hadda lagu sheegay inuu yahay George Zane oo 71 jir ah la xiray laakiin markii su'aalo la weydiiyay kadib cadeymo lagu waayo oo la sii daayay markii dambe haddana taliyaha FBI-da waxa uu sheegay in qof kale oo laga shakisan yahay la soo xiray isagana su'aalo ayaa la weydiiyay wax dambiye waa lagu waayay waa la sii daayay mas'uuliyiintu markii saaka shirka jaraa'id qabanayay waxay yiraahdeen labadii qof oo aan ka shakin soo xirnoon sii daynay hanjabaado ayaa loo soo gudbinaya marka ha laga joojiyo fadlan ay yiraahdeen dadkaasi dad laga shakiyo la baaray dambina lagu waayay la sii daayay ayay ahaayeen haddaba marka waxa jirta in baarayaashu marka laga soo tago qorigaasi Helen iyo sawirkan ay soo bandhigeen in ay jirto lacag ilaa $100,000 la siinayo qofkii gacan ka geysta soo qabashada
qofkan laga shakisan yahay oo dilkaasi inuu geystay looga shakisan yahay. marka baarayaashu waxa ay sidoo kale xaqiijiyeen in ilaa iyo hadda aysan jirin qof loo soo xiray. marka qofka sawiradiisa lasoo bandhigay waxay baarayaashu ku sheegeen qof dhalinyaro ah oo dhalinyarada heerka jaamacadeed ah inuu yahay sida sawirka ka muuqata. waxa uu xiran yahay koofi madow sidaad aragtaan, ookiyaalo dhinac kuwa qoraxda loo qaato oo sunglasses oo madow ah, sarwaal jeans ah, funaanad gacmo dheere ah oo madow ah ayuu xiran yahay sida baarayaashu ay sheegeen. shacabka ayayna weydiisteen qofkii garta sawirkaasi inuu la soo xiriiro FBI-da gaar ahaan qaybta Salt Lake City ee gobolka Utah oo halkaasi xitaa nambarkooda ay ku soo qoreen. marka waxay leeyihiin qofkii garta sawirkaasi ha nala soo xiriiro. marka ilaa hadda waxyaabaha la helay waxaa ka mid ah in qorigii la helay loo malaynayo dilkii in lagu geystay, sawirkanna lasoo bandhigay. marka waxaa sidoo kale jirta in ninkan dhalinyarada ah ee Charlie Kirk ay madaxweyne Trump aad isugu dhawaayeen. xitaa waxaa la leeyahay madaxweynaha la taliya ayuu ahaa. la taliyaashu waxay isugu jiraan qaar la magacaabay oo madaxweynaha si toos ula taliya oo la shaqeeya, iyo kuwa markii ay soo wacaan hadalkooda u dhageysto. waxaa ka mid ah ninkan shalay dhintay ee Charlie Kirk iyo gabadha la yiraahdo Laura Loomer. haddii ay soo wacaan madaxweynaha waxaa la leeyahay si toos ayaa loogu dhiibi jiray oo xiriir sidaasi u dhow ayaa ka dhaxeeyay. madaxweynaha xalay waa tii qasabtay in Oval Office intuu soo fariisto oo hadal ilaa iyo 4 daqiiqo ah ujeedo xiraa dhinaca laftiga ama dimuqraadiyiinta ayaa arrintan ka dambeeyay. marka waxaa sidoo kale jirta in hadda ururkiisa la yiraahdo Turning Point USA isagoo 18 jir ah uu aasaasay sanadkii 2012 isla markaana sidoo kale waxaa jirta Turning Point USA iyo Turning Point Action. ninkan waxa sidoo kale uu hadda ku guda jiray safar uu ugu magac daray soo laabashada weyn ee Mareykanka, The Great America Comeback Tour, oo uu doonayay jaamacado fara badan oo Mareykanka inuu ku maro. laakiin arrin la yaab leh ayaa soo baxaysa oo shaki dhalinaysa. waxaa la leeyahay FBI-du markii arrinta dhacday eeraboorada halkaasi ka agdhow maxay u xiri waayeen. waxaa hadda soo baxday eeraboor private oo si gaar ah loo leeyahay oo aan ka fogeyn jaamacadda uu dilku ka dhacay oo 5 mayl u jira, in diyaarad private ah ay ka duushay saacada kadib markii dilkan uu dhacay. waxaa loo baahnaa in sidoo kale hawada la xiro markii baaritaankan la bilaabay. diyaaradan private-ka markii hawada ay gashay 32 daqiiqo kadib raadeerka ayay dansatay. dhinaca waxaa la leeyahay Arizona ayayna aaday. ninkan la dilay Arizona ayuu deganaa. marka dhinaca Arizona ayay aaday. diyaaradan waxaa la leeyahay waxa ay dooshay wax ka yar kadib 2 duhurnimo. dilku sida uu dhacay 12 iyo 20 daqiiqo ayuu dhacay. 2 duhurnimo ayay kacday diyaaradan. waxaana sidoo kale la leeyahay waxaa sidoo kale ay dansatay raadeerkeeda ilaa iyo 32 daqiiqo kadib markii hawada ay ku jirtay. arrintaasina kulley baaritaan ayaa lagu samayn doonaa. diyaaradaha private-ka number ayay leeyihiin, dabagal ayaa lagu samaynayaa yaa raacay. arrimahaasi oo idil baaritaan ayaa hadda ku socda. marka baarayaasha ninka gobolka Utah u qaabilsan public safety-ga oo la yiraahdo Bo Mason shirka jaraa'idoo maanta qabta waxa uu yiri waxaan helnay muuqaal cadeynaya dhaqdhaqaaqa qofka looga shakisan yahay inuu dilka geystay. ninkan waxa uu yiri waxa uu jaamacadda yimid 5 saac iyo 52 daqiiqo. waxaan helnay dhaqdhaqaaqiisa markii jaranjarada uu korayay saqafka sare markii uu korayay halka toogashada uu ka geystay. sawirkan idiin muuqdo qofku meesha saaran kadib markii uu dilka geystana cararaya ayay kaamirooyinku qabteen. marka waxa uu yiri muuqaal fiican ayaan haynaa qofkun markii jaranjarada uu ku socday, saqafka uu korayay, markii uu ka degayay oo meel la degan yahay uu ku cararay. waxaan wareysanay dadkii guryahaasi deganaa kaamirooyinkooda waxyaabihii ay duubeen haddii ay wax arkeen. waxaana uu sheegay in muuqaal fiican ay hayaan, haddana ay muuqaalkaasi falanqeynayaan ama analyze garaynayaan. waxyaabaha ka soo baxana sidoo kale ay ogaan doonaan, laakiin waxa uu sheegay ma doonayaan in ay hadda muuqaalkaasi ay soo bandhigaan. marka waxa uu leeyahay dhaqdhaqaaqii qofkan laga shakisan yahay inuu dilkaasi geystay waan helnay muuqaaladaasi oo idil, haddana baaritaanada waa ay socdaan. waxauna u mahad celiyay saraakiisha ama ciidamadii kala duwanaa ilaa shalay ilaa ay xalay baaritaanada waday. isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri I'd like to thank all the investigators that are involved in this. They have worked around the clock, all day yesterday, through the night last night. Investigators from the State Bureau of Investigations, from county, from city agencies, the university, our federal partners with the FBI, the ATF, and many others. Those are just a few of the people that we have involved in this. I'd like to thank all of them for their strong work. Through all that work last night, we were able to make a few breakthroughs. Through all that work last night, we were able to make a few breakthroughs. We were able to track the movements of the shooter. Starting at 11:52 a.m., the subject arrived on campus
shortly away from campus. We have tracked his movements onto the campus, through the stairwells, up to the roof, across the roof to a shooting location. After the shooting, we were able to track his movements as he moved to the other side of the building, jumped off of the building, and fled off of the campus and into a neighborhood. Our investigators have worked through those neighborhoods, contacting anybody they can with doorbell cameras, witnesses, and have thoroughly worked through those communities, trying to identify any leads. We do have good video footage of this individual. We are not going to release that at this time. We are working through some technologies and some ways to identify this individual. If we are unsuccessful, we will reach out to you as the media and we will push that publicly to help us identify them. But we are confident in our abilities right now, and we would like to move forward in a manner that keeps everyone safe and moves this process appropriately. dhinaca kale madaxweyne Trump oo saaka ka hadlayay 24 sano guuradii ka soo wareegtay markii weeraradii argagixisada Al-Qaacida ay ku soo qaadeen Mareykanka bishii September ayna 11 sanadkii 2001 ayaa waxa uu sheegay in ninkii saaxiibka ay isku dhawaayeen ee shalay October la dilay Charlie Kirk oo guddoonsiin doono bilada ugu sareysa ee madaxweyne Mareykan uu guddoonsiyo qof shacab ah oo la yiraahdo Presidential Medal of Freedom waxana uu sheegay inuu rajaynayo in dad aad u fara badan ay maalinta abaalmarintaasi la bixin doono oo waqtigeeda uu gadaal u sheegay inuu ka soo sheegi doono inay ka soo qayb gali doonaan madaxweyne Trump oo arintaasi ka hadlayeen waxa uu yiri express the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of Charlie Kirk have felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. We miss him greatly, yet I have no doubt that Charlie's voice and the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only guarantee you one thing, that we will have a very big crowd. Very, very big. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo